ololahan akhriska iyo qoraalka lagu barayo dadka reer miyiga ayaa waxaa fulintiisa iska kaashanaya muasasada horumarinta waxbarashada ee Iftiin iyo hay'adda Rajo waxaana sanad kasta laga fuliyaa deegaano kala duwan. Sanadkan waxaa nasiib u yeeshay in ololahan laga fuliyay magaalooyinka Cadaado, Godin Labe, Kayn, Baxdo, Maarsame, Gacamaara iyo tuulada Waable oo hoos tagta magaalada Ceelhuur. ololahan ayaa waxaa la qabtaa sanad kasta marka la gaaro fasaxa sanad dugsiyeedka iskoolaadka waxaana fuliyay dhammaan ardayda wax ka baratay iskoolada muasasada Iftiin iyo ardaydii hore uga qalin jabisay iskoolada muasasada Iftiin. Nuur Cabdullaahi Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka midowga ardayda Iftiin Family horeyna uga qalin jabisay muasasada Iftiin haddana wax ka barata mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho oo ka hadashay goobta lagu qabanayo ololaha ee magaalada Baxdo ayaa ku dhiirigelisay dadka ololahan ka qayb qaadanaya inaysan waxbarashada ka harin iskoolaadka markii dib loo furana ay tagaan iskoolada iyo goobaha waxbarashada. waxaan kaga baahanaa dilaashiin oo lamun inta ficil ay qaataa inay qaadatiin iskuulka adinka iskala celin kala ma jirto sida hadda lagu daraasad ka daran lagu daraa insha Allah dilaa minka sanduuqeedka la gaar soo xaadir adinka uniformta oo ay arday iskuul ma insha Allah dilaa Cabdullaahi Maxamed Cumar oo ah gudoomiyaha midowga ardayda Iftiin Family oo ka hadlay goobta ololaha lagu qabanayay ee magaalada Camaara ee gobolka Mudug ayaa sheegay in Iftiin iyo ardaydu ay rabaan in dhammaan bulshada ay ka simaan xagga waxbarashada waayeel iyo dhalinyaro intaba. inta sidoo hore u sheegay Ustaad Maxamed dhammaan muasasada Iftiin waxay u taagan tahay iyo ardayduba inay dhammaan dadka isla simaan xagga waxbarashada oo ay dadka noqdaan dad level ah oo xagga waxbarashada ka siman cid kastana waa gaari kartaa ninka cibaalaha ah ninka dhalinyarada ah kan waayeelka ah dhammaantood way u siman yihiin waxbarashada oo waxbarashada xaggeeda mid uu kala weyn yahay sida meesha iga muuqatana dad waayeel ah dad dhalinyaro ah dad dhexdhexaad ah inta way isku jirtaan dadku markay wax bartaan waxa la wixii in dhaqankoodii la muujiyo buugga inta wixii lagu qorqoro guriga la dhiga maahan dhammaantiina wax barta annaguna wax wada barano si aan u noqono bulsho caafimaad qabta bulsho habaysan bulsho meel walba oo dowladyada dhammaan ka habaysan diilaadno. Maxamuud Maxamed Jaamac oo ah agaasimaha muasasada Iftiin xafiiska gobolada dhexe oo la hadlay dadka ololahan ka faa'iideysanaya magaalada Cadaado ayaa sheegay in si toos ah u furmay ololaha akhriska iyo qoraalka waxaana uu sheegay in hadda si toos uga fureen kaamka daryeel oo ay ku jiraan dadka ka soo guuray miyiga magaalada Cadaado ee abaarta ku xoolo beelay. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ba'da salaam maanta waxaan joognaa kaamka daryeel oo ah kaamamka Cadaado ugu weyn mid kamid ah waxaan u nimid inaan ka fulino ololihii dadka lagu baraayay akhriska iyo qoraalka kaamka maanta ololaha waa furitaan bisha inta ka dhamaan oo soconaya haduu Ilaahay yiraahdo waxaan joogaa meeshan ardadii Iftiin wax ka baratay degmada Cadaado iskuulka Cumar Faaruq hoose dhexe sare kuwa uniformka wata iyo kuwa wadan ayaga waay waxay diyaar u yihiin in ay walaalahood ku soo barakacay meeshan ay wax baraan waxa la ka rabaa Ilaahay yiraahdo barashadu waa meesha kaliya ee looga bixi karo dhibaatada jahliga dhaca abaarta looga bixi karo. ololahan akhriska iyo qoraalka lagu barayo dadka reer miyiga ayaa waxaa sanad kasta la qabtaa marka la gaaro fasaxa sanad dugsiyeedka waxaana sanadkan ololahan si toos ah looga fulinayaa ilaa 7 deegaan oo ka mid ah gobolada Mudug iyo Galgaduud.